xafladan waa soo qaban qaabiyeen ganacsatada Soomaaliyeed laguna soo bandhigay mashruuc dhul deegaameen ah oo ay xaafadda Donholm magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ka hirgelinayaan ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxa ka qayb qaadanaya si uu iyaga hawshan gacanta ku haya ayaa faahfaahiyay ujeedada kulankan. waxaan maanta meeshan soo bandhignay state oo la yiraahdo Golden Valley Homes. State kan wuxuu ku yaala Donholm saa ujeedin wuxuu ka kooban yahay 222 boos wuxuu isugu jira 40 by 80 iyo 33 by 66. State-ka wuxuu leeyahay all services oo loo baahnaa oo ka mid ah masaajid oo jaamic oo weyn oo ilaa iyo G+4 la dhisi doono iyo wuxuu leeyahay shopping center wuxuu yeelan doonaa school ilaa grade 9 ah. State-ka wuxuu leeyahay plan master plan boorka soo kaga muuqdo. master plan-kaasi waa qaabka loo habeeyay oo boolada 40 by 80 ah in ay noqdaan G+2 ama kan hoose iyo laba door iyo kuwa 3 by 66 ka ah oo 3 by 66 ka waxaan u talgalay inaan ka dhisno ama loo design gareeyo G+1. State-ka waa controlled area waa community gated state oo design-kiisa iyo master plan-kiisa oo la soo diyaariyay ma ahan wax optional oo la iska dhisan doono. bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa meeshan inay ka faa'iideystaan. qaar ka mid ah dadkii ka hadlay madasha ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay in dhul la maalgashado. real estate-ka sidaan ka warqabno waxyaabaha ugu fiican investment-ga lagu sameeyo adduunyada waxa ugu fiican ugu safe ah ugu amaan badan in maalkaaga aad gashato real estate. sida awadeed adduunyada dadka ugu lacagta badan waxyaabaha ay ka shaqeystaan waxa weeyaan waa maalgelinta dhulka la maalgeliyo. waxaan ka mid ahay inaan deganahay degmadan Donholm. marka waxaan leeyahay waxa maanta marti sharafta noogu soo dhaweysay Silver Golden Home. aad u mahadsantihiin soo dhawaada. anaga reer Donholm markaan ahanay aad iyo aad aan ugu baahanay inay Soomaali halka noo soo degta maxay yeelay waxaan ugu haystaa xagga masaajidka dugsiyadka aad aan ugu dambeynaa karibuni. runtii waa ku faraxsanahay in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay door fiican ku leeyihiin horumarinta deegaamada ay ku sugan yihiin. waa runtii wax qurux badan in magaalada Nairobi dalka Kenya aad loo maalgashanayo. aniga xaafadan aadan u aqaana Donholm waxaan aaminsanahay in state-kan uu noqonayo state loo baahnaa. war badan igama furra meesha halkan waa mashruuc maanta Golden Homes Village Homes oo runtii state ummaddu maanta baahi weyn u qabto. dadka maanta degan baahida weyn u qaba waxaa ugu horeeya caruurta iyo haweenka deegaan gudaha iyo dibaddaba. safiirka Soomaaliya waddanka Kenya Danjire Jibril Ibrahim Abdulle oo xariga ka jaray mashruucan ayaa tilmaamay inay dhiirigelin u tahay bulshada Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga inaan mahadcelin u jeediyo ganacsatadii isxilqaantay Golden Valley Homes barnaamijkan ay sameeyeen ee laga hirgeliyay xaafadan. waxaan isleeyahay muhiimad qaasana waa leeyahay waa laga hadlay laakiin wuxuu dhiirigelin u yahay ummadda Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed. wuxuu kaloo astaan u yahay dareenka laga qabo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Kenya oo ah dad firfircoon isku kalsoon isjecel xaqiiqdii wax isku darsada wax isla wadaaga. inta badan way adag tahay Soomaaliyeed wax badan baan ugu eedeeyaa gaar ahaan wadamada qaarkood qurbaha u badnaadaanay ama wadamada qaarkood xataa Afrika ku yaalo Soomaalidu waxba isku darsadaan. laakiin waxaan marxaati ka ahay aniga oo safiirka ah in Soomaalida ku dhaqan Kenya ay yihiin dad Ilaahay ixtiraamay sharaf leh karaamo leh isbahaysto isku dhex jira wax isla wadaago. anigana sharaf iyo weyn iyo karaamo ay tahay dadkaasina wakiilka ah.